kooxda isbuuca ee ka kooban 11 xidig ee toddobaadkan ugu fiican Premier League oo la magacaabay kulamadii isbuucii lixaad ee horyaalka Premier League ayaa la ciyaaray toddobaadkan iyagoo Manchester United Liverpool lagu dhigay halka Chelsea ay guul soo laabasho leh ka gaartay kooxda West Ham United. Manchester United ayaa iyadana ka farxalatay kooxda la celin waayay ee Arsenal ayaa wili hoggaanka u haysa Premier League iyagoo ku hogaaminaya 15 dhibcood halka Manchester City oo labaad ku jirta ay leedahay 14 dhibcood waxaana 14 dhibcood la leh kooxda Tottenham oo kaalinta saddexaad ku jirta halka Brighton oo soo xasuuqday Leicester City ay 13 dhibcood ay leedahay kuna jirta kaalinta afraad iyagoo Manchester United oo guushii afraad isku xiga gaaray ayna ku jirto kaalinta shanaad waxayna leeyihiin 12 dhibcood. haddaba qabiirka Sky Sports ee Kath Crooks ayaa soo xishay 11 xidig ee toddobaadkan ugu fiicnaa Premier League. dhanka goolhayaasha waxaa toddobaadkan ugu fiicnaa goolhayaha Everton ee Jordan Pickford oo 3 dhibcood ka horjoogsaday Liverpool kulankii barbaraha ku dhamaaday ee Merseyside Derby. 3 fursadood ayuu ka badbaadiyay Firmino halka fursad dahabi ahayd uu ka hor istaagay Darwin Núñez oo ka badbaadiyay fursadaasi. saddexda daafac ee dambe waxa ugu fiicnaa toddobaadkan daafaca kooxda Everton Godi oo halbowlo u ahaa kooxda Frank Lampard halka daafaca kooxda Liverpool Joe Gomez uu soo bandhigay qaab ciyaareed aad u fiican xaqiiqsadana booskiisa isagoo ahaa daafaca hogaaminaya kooxda Liverpool maadaama Virgil van Dijk uu ku jiro waqti aan u fiicnayn. Ben Chilwell oo aan ku soo bilaaban ciyaartii Chelsea iyo West Ham United ayaa ahaa xidigii ciyaarta bedelay isagoo dhaliyay goolka barbaraha inta uusan caawina goolka guusha ee uu dhaliyay Kai Havertz. afarta khadka dhexe ugu fiicnaa waxaa ugu horeeya xidiga kooxda Bournemouth ee Bellingham kaasi oo dhaliyay gool cajiib badan kulankii guusha soo laabashada ay ka gaareen kooxda Nottingham Forest. kooxdiisana 2 gool lagu leeyahay ayuu ku hogaamiyay in ay 3-2 ay ku badiyaan. waxaa isna toddobaadkan si fiican u ciyaaray xidiga khadka dhexe kooxda Tottenham Hotspur kaasi oo soo bandhigay qaab ciyaareed aad u fiican iyagoo u sii dheer gool uu dhaliyay kulankii kooxdiisa ay la ciyaartay kooxda Fulham. xidiga Manchester United Christian Eriksen ayaa soo bandhigay isbuucan kulankiisii ugu fiicnaa intii uu xirnaa maaliyadda kooxda Manchester United isagoo kala diray kooxda Arsenal oo ciyaar isku duubni kusoo bandhigtay garoonka Old Trafford waxaana khadka dhexe dhameystiray xidiga Alex McTallis oo 2 gool u dhaliyay Brighton kulankii 5-2 ay ku garaaceen kooxda Leicester City. weerarka waxaa hogaaminaya Marcus Rashford oo 2 gool ka dhaliyay kooxda Arsenal kulankii Manchester United ay ku badisay Old Trafford. xidiga reer Ingiriis ayaa u muuqda inuu si rasmi ah booskiisa weerarka uga baxay Cristiano Ronaldo oo saaxiib la noqday kursiga keedka. waxaa isna mashiinka gool dhalinta Premier League noqday Erling Haaland oo mar kale shabaqa soo taabtay kulankii Manchester City barbaraha ay la galeen kooxda Aston Villa halka weeraryahanka kooxda Brentford Ivan Toney uu 3 dhaliyay kulankii kooxdiisa ay ku garaacday 5-2 kooxda Leeds United. shaxda isbuuca ee horyaalka Ingiriiska Premier League ayaa waxaa ka mid ah Pickford, Godi, Gomez, Chilwell, Blink, Hotspur, Christian Eriksen, McTallis, Marcus Rashford, Erling Haaland iyo Toney.